baraarugo barbaaray ku shabeegso dunidu waa baratane kabadi qayrkaadada kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka hiigsiga nolosha oo jimca kasta wakhtigan oo kale ka dhegaysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda BBC-da waa barnaamij taxana oo ka hadla waayaha nololeed ee dhalinyarada Soomaalida dhibaatooyinka haysta iyo sida ay xal ugu heli karaan dhibaatooyinkaasi barnaamijkan waxaa idin soo jeedinaya anigoo Cabdilaahi Jaamac qodobada dhegeystayaal idinku hayno waxa kamid ah barnaamijyo kooban oo ay soo saareen idaacadaha Radio Hargeysa, Radio Gorowo FM iyo Radio Goobjoog FM Muqdisho waxay barnaamijyadaasi ugu talagaleen dhalinyarada deegaanadooda joogta ee dhageysata maaliskii maalmo dhaama maanta iyo waliba qodobo kale ayaanu halkan idinku haynaa hadii ay baydno inaga oo dhageystayaal mar dhow dhageysan doona maadayska maalmo dhaama maanta bal hadda aan ku horeyno sida caadada ahayd idaacadaha aan wada shaqeynta leenahay barnaamijyadii ay ugu talagaleen toddobaadkan dhalinyarada dhageysata Radio Hargeysa waxa uu toddobaadkan diyaariyay barnaamij uu kaga hadlayo caqabadaha guurka ka haysta dhalinyarada waxay u dhigeen sida tan bulshada Soomaalidu marka hore isguursanayaan dadku waa dad aad isku jecel oo aad isku xiriiriya weeyaan laakiin marka la isguursado waxaad moodaa xataa marka la wada socdo in la kala horeeyaad moodaa oo markaad ku tiraahid gabadhaada maxaad u raaci weydo waaban qabaayo maxaan ka raacayaa uu ka hornaya waa mowduuca toddobaadkan aanu kaga hadlayno barnaamijka hiigsiga nolosha oo ah caqabadaha ay dhalinyaradu la kulmaan xilliga guurka iyo jawaab celinta dhageystayaasha barnaamijkii toddobaadkii hore waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Cali Ciise barnaamijkaasi Radio Hargeysa dhalinyaradu waxay ka dhageysan karaan 7:00 fiidnimo habeenka Axadda Radio Goobjoog FM Muqdisho ayaa isna toddobaadkan waxa uu diyaariyay lamaanaha iskuursada xilli aanay mas'uuliyadaasi u bislayn iyo dhibaatooyinka qabsada bal wax yar aan ka dhageysano barnaamijkaasi marka aadan garaadsanin waxaad macnaha dhibaatada aad la kulmayso kamid ah adigoon aqoonin ninkii iyo sida loo dhaqdo iyo sida aan loo dhaqanin tan hadda aniga ugu dhacdo kale shay waliba wuxuu u baahan yahay garaad hadii garaad la waayo wax jiri kara ma jiraan qofka iyadoo yar hadii guursato ilmihi xaqooda inay ka soo bixi karnaa laga yaabaa waxaad kaloo maqli doontaan fikradaha dhalinyarada ka soo aragti dhiibatay barnaamijkii hore waxaana idin tabinaya barnaamijka toddobaadkan anigoo ah Cali Aadan Muumin Cali Alloore barnaamijkaasi dhalinyaradu waxay dhageysan karayaan isagoo dhameystiran 10 iyo 10 daqiiqo subaxa Sabtida ah hadii ay baydno Radio Gorowo FM ayaa isna waxa uu toddobaadkan ka hadlayaa sababta ka hortaagan dhalinyarada Puntland inay ka faa'iideystaan kheyraadka dhulka ay ku nool yihiin dhalinyarada Puntland khaasatan waxaan ka hortaagan barnaamijyada shakhsiyan ee wadanka kama jiro waxbarasho iskoolo ka haqabtira inay macaadada farsamo gacantida macadka kalluumaysiga beeraha anu taan barnaamijyada waa aqoon dar waxa kale oo qayb ka ah aragtidii laga soo dhiibtay mowduucii toddobaadkii hore barnaamijkan oo dhameystiran dhalinyarada Gorowo waxay dhageysan karayaan 2:00 duhurnimo maalinta Axadda halka aad barnaamijkan ka dhageysanaysaa waa BBC laanteeda afka Soomaaliga waxaana barnaamijkan idin soo diyaarisay BBC Media Action dhageystayaal haatan waxa wada sugtaanba waa maadayskii xiisaha badnaa ee maalmo dhaama maanta oo gudhiso arrimaha dhalinyarada Soomaalida ka hadlaya wiilkii cawaanta ahaa iyo aftigii saaka xigay ku kalaheed subax wanaagsan Maymuune waana kan aniga wiilkayga Cabdulaahi subax wanaagsan edo subax wanaagsan oo saaka halkee ku jarmaateen saaka aniga iyo Cabdulaahi baa masaajidka aadnay xilli hore intaadan keenay adigu oo Cabdulaahi salaadaba masaajidku kugula soo tukaday ha masaajidkan ku soo wada tukanay ma sha Allah habar yar Cabdulaahi Ilaahay baa ku soo hanuuniyay sida kuwad alla kuma qaadee aamin edo salaad waa inagu waajib waxaan doonayaa inaan mar kasta masaajidka ku soo tukado hadduu Ilaahay idmo hadda kadib habar yar igu yaad halkii hooyadan kugu jiray warfaasoo quraacda idima siiyo ha noo soo wada gur aniga iyo Cabdulaahi habar yar aan ku caawiye maxaan ku qabtaa maya habar yar quraacda waan diyaariyay fariiso oo quraaco Maymuune dib ma leh hadduu ku caawiyo waa wiilkaagii waanaga xaajee dib ma laha haddeer waan diyaariyay quraacda hadda kadib gurigan ayaa nagula noolaanaysaa abti hayaabti insha Allah Maymuuna waa hooyada oo kale haddana waxbarasho gal waxaan rabaa inaan kuu geeyo caruurtaydii dibadda joogtay si aad si fiican wax ugu sii baratid waqti waxbarasho noocee ah waxbarashadii aad ka tagtay dhamaystiro anaa kharashka ka bixinaya jaamacadana halkay caruurtaydii joogto baad u tagi doontaa insha Allah oo abta jaamacadda meel la ii ogolaanayaa ha maxaa dhacay waa lagu ogolaanayaa hadda halkan si fiican wax uga sii baratid hayaabti insha Allah waan dadaalayaa ما شاء الله عبر ير وحبرشة ابتجاه كل دون يكسر دلال هيا إن شاء الله ويقول بلن
cabdulaahi waa wiilkeenne hadda kadib gurigan ayuu toos uga tirsanaanayaa asagaa hadda uu heli noo ah oo waa wiilkaygii carruurtaydu iila mid yahay habar yar horta kitaab qur-aani guriga muu yaalaa haa habar yar waa yaalaa waxaan kaloo rabaa kitaabada axaadiista ah habar yar qayb waa taallaa wixii kaa dhimanna abtigaabaa kuu soo gadahaya haya habar yar hana igala xishoon waxaad u baahan tahay i weydii waan ku weydiin insha allah waad ku mahadsan tahay abti habaryartaa suuqa adaa ka badiya meelaha qaarna adaa ka caawinaya intaan hadda waxbarashadu kuu bilaaban abdisuuqi waan ilaaweydaa ma dhowrkii biloodaad xidhnayd baad ilowday sidaas baaba wanaagsan oo dadkii wax kale kaa aaminsanaa waabay ku ilaaway soomaa haya abti soo quraaco habaryartaa waa isla joogtaane habar yar cuntada markaad u baahato ha isdhihin habaryartaa weydiiso waad soo qaadan kartaa wixii aad aragto falaxalkiina waa ka agtiina yaala waa saxa ka xishoon oo xitaa kushiinka haddaad wax uga baahato ka soo adeego haya abti ilaahaba iikii soo diray hadda dib jir baan ahaan lahaa nin raga noqo waxbarashadaadana ku dadaal hannana waa ku caawin doonnaa insha allah abti wixii waajibaadkayga waan ka soo baxayaa adiguna ii duci abti macalin khaalidow faadumaaba odhan jirtay xisaabta igu adag maanta anigaaba middan halkan dhaafin kari waayeyba cibaada anigu weli sidaba xisaabta igu adag tahay oo waxaan macalin khaalid dukaanka ugu dhiibay xisaabtaan idiin dhigaya maba ahaa tii adkayd fahan yarun bay u baahan tahay cibaada kaa fahmad waraysan baan islaaye iyana maanta bay ka sheekaynaysaa faadumoy sababtii xisaabtu gashay meelo waaweyn maya weli meelo waaweyn maynaan gaadhin macallinow xisaabtan baha noo dambaysee arrin baannu doonaynaa maanta inaannu kuu sheegno soo khayrun ma aha wax ka khayr badaniba ma jiraan baan filayaa cibaada macallin khaalid dibkaynu ku badinaye maad ka daysid sheeg cibaadaday arrinka haddiiba uu khayr yahay macallinow horta waad noo wadi doontaa duruustan aadna siinaysee in kastoo aad faadumo casharo badan guriga dee ugu dhigtay waa run horta waa tii faaduma dukaanka kuu dhiibtay xisaabta ay khaldayso uunbay ka fikiraysay inaan xooluu ka khasaarin kow haye khayr allaha ku siiyee waxaan aniga iyadu isla garannay inaad hantida u dhaqaalayso taasi waabay dhammaatay waanigii furiyii dukaankana la wareegay macallinka shaah muu soo shubaa cibaadey ha tegina suganaa shaaha soo shubaye macal waa tii laguu dhibay markaa furihii dukaankii cusbaa dee furo kalena inaannu kuu dhiibno ayaannu doonaynaa ma dukaan kale nin kastoo dee adigii faadumo aad kala da'weyn tihiin haddana waxaan doonaynaa dee inaad hu isu noqotaan allah ma guur naa cibaado macallinka waad kaga naxisaye naa isukrun yeelkaba waa la caddeeyaaye khaalidow arrinkaasaan kuu soo jeedinaynaa horta waa wax dhici jirtay dadka kala daaweyn inay isguursadaan nebigeennii calayhi salaatu wasalaam ayaaba khadiijo guursaday iyadoo 40 jir ah isaguna aanu 30 kaba gaadhin waa run taariikhdaa waannu haynaa laakiin su'aal madaxayga ka guuxaysaa jirta oo ah faadumaynankeeda calina saaxiiba ayaannu nahay soo markaa saaxiibtinimadii dhammaan mayso soonigoo kuu sheegay hadduu caasho helayba inaannu dibba ii soo eegaynin reerka wiilu noqo baad igu tidhi ma arrinkan buu ahaa wiilu noqoshadu horta cali anaa kaaga filan reerkan wiil wanaagsan u noqona dee waa sidaad u garatay haa waa sidaa arrinku khaalidow horta waxaan ku fikiri jiray sideed ugaasoo heshaa xoola iyo baasaboor inaan u raadsado waa tii tahriibta aan ku guulaysan waayey gelisay aweys bay calaf isku lahaayeen waa taasaa kala meheriyey galabtana anigii faadumo waannu tegaynaa arooska iminka tanibo waa nimco waanan idinka aqbalay guurka faadumo maasha allah dhammaataya talow macarab dhaba meeday caruusadii wallee meeshan galabta waa la ysku arkay soo soceeda cibaada way kane naa u bannaan yahay idinla fadhiisatee maasha allah quruxdeedii oo dhan baa iftiinka loo soo saaray maasha allah oo durbaankii mee haddadan iska daaya oo saaka waa laysku arkay meherkii waa sax saaka raggii oo idilba isugu yimi warfaa baa iiga sheekeeyey wuxuu ku leeyahay saaka cid waliba waa joogtay ilaa cabdilaahi cawaanti cabdilaahi cawaantiyo xabsigii ka soo baxayna wuu yimi arooskayga maasha allah arooskaagani qiimo badan buu leeyahay waad u samirtay aabbaha saleebaan inuu sidaa wanaagsan kuu bixiyo awaysi adigana ilaaha isku kiin barakeeye damacaan aamiin eta faadumo inoo soo qaada durbaanka dee meeye habliya aynu faraxnee dee soo fadhiista oo hooyada cibaadoy adigaa nuugu weyne gabaatigan u qaybi meedha caashay sharaabka ii dhib xalwadaan halkaa ka soo qabo adduunyada ilaahay laba jacayloo kala weyn haynugu daadina ayarsaadii sharaabka naasaada maalintii dumarku isugu yimaadeen sisadka kumaan waraysanaya taariibtood ku soo rafaaday baa la yidhi anigu maalintaa mabaan garanayn waxaan islahaa waa inanay hablaha asxaab yihiin oo caawinaysa uun hadda cibaaday waan arkaya inaanadi garanaynin maalinkaa
dhibka ku gaadhay muxuu ahaa saadoy hadda dhibku ma yaraa waad maqli jirteen nimanbaa dadka meel ku oto ilaa lacag la siiya aan soo daynin kuwii baa helay sidaa uga timi waalidkay Puntland buu joogaa tahriibna iguma ogeen Hargeysadan baan u jooga ilaahay hadda ay Axmed baa la soo hadlo oo iga soo bixiyay madax furashadii iyo kharashkii aan ku soo laabtayba alleeda waad ladan tahay haddaanad kala iman ilmo yar wixii dhalay aan la garanayn haddaanad cudur soo qaadin waaba sahalo eedda Faadumo iyo Cibaado dhibkaad sheegaysaan waan ka badbaaday laakiin hagardaamaan doontuun bay ahayd iminka Axmed uu baatay Soomaa Axmed waa nin wanaagsan oo qaaliya hey waa isaga uun qof kale looma hayo arooskaygana koodun baa ku xiga aroosyadu way badan yihiin khayr Allah ka dhigo saada waatan xalwadi wax walba waa diyaar durbaanka iyo heesuun baa naga dhiman eedda Cibaado iyo eedda Faadumo Maymuune walaal sharaabkan iyo xalwadana idinka sugaya naacibaado bar salaabkan xalwadan isku qabo Maymuun maxaa la aamusantay deeq saadna waxaan isleeyahay durbaankan ha bilowdo alla soo kuwan jooga deedooyinka u soo dhiiba durbaanka hooyo Cibaado waa kan durbaankiine ii dhiibo oo kaalaya sacabkii heesaha aynu bilowne bal qof faroo heesaad arooska la jeclaato ku dhufo anigana durbaanka igu daaya mahadsanid Cibaado naadayna bilow saado asabkiinta laga ciri la raacay indhaha arooskeen laace ladinaan kuwara labadii istarte libante ahaada habe qadaraad heshen ducadood hambalyayne habe qadaraad heshen ducadood hambalyayne saada iskuma wanaagsan walaalaha tuwa baash rabadii hodme hay wada gale hodale noqde hibayo ducaba naga hooyae hibayo ducaba naga hooyae rabadii ku heshiyae hodale noqde hibayo ducaba naga hooyae ducaba naga hooyae hambalyo aad ayay u mahadsan yihiin jilayaasha madayska maalmo dhama maanta dhegaystayaal